Waa tahay waa walaalkiin ilkacaasi kulanti wacan oo wanaagsan soo dhawaada asxaabteena qaaliga ah meel walba aad joogtaan sida hore iigu ballan qaaday waxaan iisoo gudbin doonaa muuqaalo aad u qurux badan oo isla mar ahaanta ku saabsan xeebta Mombasa. Maanta safarkeenu wuxuu ka bilaaban doonaa kulan dhinaca badda ah isla markaas waxaan qaadan doonaa doon balse halkani waa hoteelka aan deganahay oo safarkeena ka bilaabayno sida aad aragto bilic aad u qurux badan dhir aad fara badan oo lagu abuuray kuwa cusub iyo kuwa waaweyn oo duqoshina isla markaasina mar waliba la daryeelo oo aad loo waraabiyo isla markaasina aad iyo aad u qurux badan. Waxaad arkaysaa oo kaleeto markaad subaxii joogto halkani xeebtii oo aad u qurux badan iyo baddii oo qurux badan oo kusoo jeedanaysa. Waa tahay halkani maanta waxaan gashanay dharkii isla markaasi doonta aan ku raacaynay ama badbaadinta loo yaqaanay isla mar ahaantaana qasab kugu tahay inaad xirato maadaama ay ka jirto xeebta ciidamo u goonaya iyo dad u goonaya isla markaas waa inaad xirataa mar waliba oo doomaha dheereeya aad qaadanayso. Doonteennii ayaan kornay anigii saaxiibkay Fatax iyo darawalkii nagu waday doon aad u dheereysa balse waxaad arkaysaa bilicda naga shishaysa annaga oo ah hoteeladii iyo weliba guriyihii ku yaala xeebta oo aad u qurux badan isla mar ahaantaana aan jecelnahay inaad wax badan aan ka tusno daawadeena qiimaha leh mar walibana aan sharafno isla markaasina waxaa tahay midka kaliya na dhiirigeliya isla markaasina muuqaalkan hadduu ku cajabiyo like dheh oo share dheh asxaabtaadana la wadaag. Waa tahay waxaad arkaysaa hoteelo qaali ah oo ku teedsan xeebta waxaa subaxa aroortii hore haddaan kaaga sheekeeyo ku sugan dadweyne aad u fara badan oo ah kuwa loo tababaray mushaarna lagu siiyo inay xeebta ka ilaaliyaan bacaha iyo dadka ee qashinka ay ku tuureen oo dhan inay ka guraan isla markaasina ay nadaafadeeda ilaaliyaan taasi oo ugu wacan tahay ciidamo gooni oo tababaran iyo kuwa badbaadada badda ah oo mar waliba ilaaliya shacabka iyo dadweynaha isla markaasina mar waliba iyo kuwa ganacsi u yimid intaba. Waa tahay waxaad arkaysaa hoteelo qaali oo ku teedsan guryo qaali oo ku teedsan oo dadka ilaahay wax siiyay ay gateen oo deegaan ay ka dhigteen isla markaasi mar ayaan waxaan u dhaqaaqnay badweynta laftirkeeda waa lama huraan inaad kor ka soo jiirayso biyaha iyo doonta xawaare dheereyso ku socotay isla markaasina kaamiradeena oo hoos u dhignay si aad u aragto afka hore ee doonta biyaha awoodii ku dhex jeexayso iyo sida u socoto iyo badda oo weliba circiraysa laftirkeeda waa lama huraan inaad aragtid. Waa tahay kadib xeebta ayaan usoo laabanay oo halkaasi dad lugeynaya ayaad ka arki kartaa meel fog inkastoo ay noo dhoweyn misna waxaad dareemaysaa inay yihiin dadweyne aad u lugeynaya oo isla markaasina aad u weyn. Annaga laftirkeena sidaa ayaan u lugeynaynay sababtoo ah waa muhiim inaad lugeyso oo qorax qaadato. Waa tahay weli badweyntii ayaan haddana geeskeeda kaleeto ku laabanay oo biyihii ayaan iska jeclaysanay inaan aragno malaayga ayaad hoos ka arki kartaa oo weliba aad u yaryar iyo weliba badii oo aad u qurux badan oo isla mar ahaantaasi biyaheedii ay tuurayso inkastoo ay dabeel badan dhacaysay oo laftirkeeda dabeel ay jirtay oo biyaha aad ka dareemayso isrogrogooda badan inay jirto dabeel aad u xoogan. Waa tahay waxaan soo qabanay dhinacii xeebta aan u soconay oo isla mar ahaantaasi aan rabnay inaan soo gaarno laftirkeena inkastoo oo weliba aan xeebtii garab socona ayaan waxaan sii arkaynay muuqaalkeena aad ka arki kartid inay xeebtii meel cabaar noo jirta ay ka muuqatay isla markaasina dad badan ay ku sugnaayeen anagoo gacmaha iskugu fiiqaynay waxyaabo badanna istusaynay oo sidaa aadka u quruxda badan mar walibana aan nii jecelnahay inaan nii soo gudbino muuqaal tayaysan oo aad u qurux badan oo aad iyo aad u wanaagsan. Waa tahay markaani waxaan soo gaarnay asagana hoteelkan sida aadka u cusub oo qurux badan waxaa la ii sheegay inuu leeyahay nin caraba isla markaasi u dhashay dalka Imaaraadka isla mar ahaantaana maal gashtay balse meelaha sidaa uga fogeen waxaa ku dawaalanaya dhalinyaro Soomaali wiilal iyo gabdhaha. Markaan usoo dhaweyno waxaa cajaa'ib kale waxay ahayd anagoo doon dheereysa saaran markay garteen inaan Soomaali nahay ayay gacmaha noo taageen oo isla mar ahaantaa ayna yiraahdeen war noo warrama balse waan salaano waan kala tagnay. Waxaad arkaysaa halkani qoysas Muslim ah iyo kuwa Soomaali ah oo ku dawaalanaya caruurtoodii oo dabaal qaadanaya oo isla mar ahaantaana si aad u dabaalanaya oo ku raaxaysanaya dabaasha iyo waalidiintooda la socdo la dabaalanaya.
waxaad arkaysaa dad kale oo ajnabi ah ayagana lamaanayaan iyo haddii kale keliba ayagana xeebta waqti ku qaadanaya oo si aad u qurux badan carrada ugu lugeynayo isla markaasina ku faraxsan sheekooyinkooda iyo si u sheekaysanayaan aad u wanaagsan tahay. Mid walibana uu nabadda iyo qiimaheeda uu dareemayo iyo dalxiiskiisa. Waxaad arkaysaa xeebta inay dad kaleeto ku dabaalanayaan, dadweyne aad u fara badan ay joogaan, isla mar ahaantaana ay tahay mid aad u mashquul badan. Annagoo jeclaysan inaan fiidiyoyo aad u fara badan kaaga soo duubno si laftarkeena ay noogu noqoto dhiirigelin aad u fara badan, isla mar ahaantaana adiga aad u dareentid inaad qayb ka tahay dalxiiskanaga iyo goobahan tagayno. Mar walibana waad arki kartaa dadka farxadda ka dhacaysa iyo sida ay u raaxaysanayaan. Adigana qayb ayaad ka tahay farxaddaasi oo adoo gurigaaga jooga, sariirtaada jooga ayaad daawanaysaa magaaladii aad isdhihi lahayd waad tegi doontaa, ama haddaad hore u tagtayba aad xasuus aad u weyn kugu leh. Isla mar ahaantaana mar galab ahayd ayaan waxaa ka qayb galnay aroos 2 qof ay ku dhiganayeen xeebta iyadoona qarash badan ka bixin, isla mar ahaantaana ay keligood dhigteen. Balse fiidiyoyada dambe ayaad ku daawan doontaan. Haatan waxaa la soo gaaray halkii aan degnayn ama hoteelkii la degnayn. Annaga daal badan ka bacday, dabaal badan kadib waxaan go'aansanay inaan markeena nasanno oo si toos ah ugu nasanno qolalkii aan deganayn, gudaha u galno. Waa halka uu safarkeena ka bilowday. Haddaad xasuusataan nala soco.